sababta farmaajo ku kaliftay waxa loogu yeeray afgambiga ayaa shaac laga qaaday. Nabadoon Cali Jeesto oo ka hadlay afgambigii la sheegay inuu fashilmay ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku qaaday xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay inay ka dambayso markii uu Rooble ka soo horjeestay kursiga uu boobay Yaasiin Farey. Waxa uu sheegay in Farmaajo uu adkeysan waayay in ra'iisul wasaare Rooble uu cadaalad u raadiyo kursiga Hoob Eber 67 ee guddigiisa ay u xalaaleeyeen kusimaha agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA kaashaan la saray Yaasiin Farey. haddii Farmaajo uu ku samri waayo laga soo dhiciyay oo uu isku dayay inuu ku ciqaabo ra'iisul wasaaraha go'aankii uu ka qaatay guddigii uu sameystay intaas ayuu ka bilowday khilaafka ayuu yiri Nabadoon Cali Jeesto oo ah saxiixa rasmiga ee kursiga Hoob Eber 67 ee loo boobay Yaasiin Farey. Sidoo kale wuxuu carabaabay haddii uu Farmaajo ka samri waayo hal kursi in uusan ka samri doonin kuraas kale oo uu rabo inuu boobo, taas oo uu ku tilmaamay waxaan la aqbali karin. Soomaaliya hadafkiina waxa ku xaqiijin kartaan inaad iska dhicisaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Hadafkiinu waa nabad, dowlad wanaag, waa doorasho loo dhan yahay oo lagu tartami karo ayuu sii raaciyay. Nabadoonka ayaa sheegay in dowladnimada ku dhismi karto in qofna aan lagu xadgudbin xaqiisa oo isku soo taagi karo kursiga uu rabo iyadoo odayaasha xaqoodana la duusin karin. Nimankan shabaabka loo yaqaano qofka haddii uu u shaqeyn waayo sida ay rabaan qoorta ayaa laga gooyaa. Farmaajona qof kasta oo aan kula shaqeynin fikirka uu qabo Soomaaliya wax kuma lahan ma aqbali karno ayuu yiri Nabadoonka. ugu dambeyntii waxa uu bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay inay meel uga soo wada jeestaan rabitaan guracan oo uu ku tilmaamay oo wado Farmaajo oo dalka u horseedaya burbur iyo xaalado kal hore si adag looga soo gudbay. waa sidoo hadalku u dhigay Nabadoon Cali Jeesto. si kastaba warka Nabadoonka ayaa imaanaya xilli saxiixa rasmiga oo uu lahaa ee kursiga Hoob Eber 67 loo adeegsaday odayaal kale isla markaasna uu ku soo baxay Yaasiin Farey oo ah taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA. dhinaca kalena xiisada hareysa guddiga doorashooyinka waa ay ka sii dartay. haddaba maxaa ku soo kordhay arrimaha guddigaasi? waxaa weli dood adag iyo xiisad culus ay ka taagan tahay guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed, kuwaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay wajahaya culeysyo xoogan iyo eedeymo loo jeedinayay. Xuseen Carab Ciise oo ka tirsanaa xildhibaanada golaha shacabka ee muddo xilheynta ka dhamaatay ayaa shaaca ka qaaday in weli ay dhibaato ka jirto guddiga doorashooyinka. xildhibaanka oo horey kursigiisii dacwad uga keenay balse loo xugmiyay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuled Qadar ayaa shaaciyay in loo baahan yahay in sixitaan degdeg ah lagu sameeyo guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed. waxaan doonayaa inaan ka hadlo guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed. kan khilaafaadka iyaga waa la taabtay, laakiin dhibaatada ugu weyn waxa ay ka jirtaa waa labada kale. sixitaan degdeg ah ayayba u baahan yihiin wayna ku bilaabatay ayuu yiri Xuseen Carab Ciise. sidoo kale wuxuu tilmaamay in guddiyadan ay horseedayaan musuqmaasuq isla markaasna aysan danka lahayn qarannimada Soomaaliya oo sidoo hadalku u dhigay. runtii waxay muujiyeen iyaga oo aan gambanaynin inay horseedaan musuqmaasuq danna aynan ka lahayn qarannimada Soomaaliya ayuu hadalkiisa sii raaciyay. xiisada hareysa guddiyada doorashooyinka ayaa marba marka ka dambeysa ka sii dareyso waxaana arintooda ay dhalisay khilaafaadka haatan ka taagan dalka gaar ahaan villa Soomaaliya ee u dhaxeeya Farmaajo iyo Rooble. sidoo uu qorshu yahay golaha wada tashiga qaranka ayaa go'aan rasmi ah ka gaari doona arrimahan si loo soo afjaro xiisada taagan oo saameyn ku yeelatay doorashooyinka dalka. si kastaba Rooble ayaa hore u kala diray guddiyada xalinta khilaafaadka doorashooyinka, taas oo keentay in mar kale ay soo noqoto xiisada villa Soomaaliya.